بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد الرسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro klibiyadii hore waxaa ku jirtay inaan idiin yidhi barta qur-aanka barta, waayo xataa jugraafiga xaqiiqiga ah wuxuu ku jiraa alqur'aan alkariim ku jiraa, taariikhda kadaalika. qur-aanka wax laga tegay ma jirto. bal buugagta xuxunka ee gaalada ay wataan silibis ahaan ee ardadeenna u siiyeen ma wax juqraafi waadixa kuma jiro. waxaan wadnaa weliba asalkii soomaaliya ayaan wadnaa weli, laakiin jugraafikali waxaad fiirisaa horta ilaahay muxuu abuuray marka hore, muxuu abuuray hor iyo horaanba. suuratu fusilad la soo bax aayadda 8. قل أئنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. بلاك وحويا dhulka in laba maalmood la abuuray. kutubada tafsiirka ah ee jalaalayn iyo sa'wi iyo ibn kathiir way isku raacsan yihiin. labada maalmood waxay isku raacsan yihiin inay kala ahaayeen maalinka axadda iyo maalinka isniinta. maalinka salaasada ama talaado ama salaaso waxaa la abuuray buuraha, wajacala fiiha rawaasiya marka la leeyahay. arbacada dhirtii iyo biyihii ayaa la abuuray, webiyadii iyo badihii maca dhirtii. maalinka khamiista waxaa la abuuray wixii xayawaanaada ee dhirtaasi biyahaasi ku dhex noolaan lahaa. kii biyaha dhexdooda ku noolaa hadduu yahay, kii xamaaratada ahaa hadduu yahay, kii bari biyoodka ahaa hadduu yahay, kii afarta lugood ku soconaya hadduu yahay, kan labada lugood ku socda hadduu yahay, wixii xayawaan ahaa ayaa la abuuray. maalinka jimcaha waxaa la isku raacsan yahay kulli a'immadaas aan soo sheegnay, jalaalayn iyo sa'wi iyo ibnu kathiir, in la abuuray oo neefta lagu shubay nebiyullaahi aadam calayhi salaam. waxay u badan yihiin culammada a'immada maaragtay tafsiirka bacdu salaatu alcasr inay ahayd. jimcaha waa aadam ayaa la abuuray. sabtiga waa maalinkii 7aad uma istawaa cala alcarshi la yidhi. labadaa maalmood ee axadda iyo isniinta samadana sidoo kale 7 samaawaad waa la abuuray. 7 samaawaati fii yowmeyni, ayagoo dukhaana ayaa la sameeyey, qiiqa ayaa labadaa maalmood laga abuuray. 7 samadood waa isla axadda iyo isniinta unbay soo gelayaan. waaya haddaba nebiyullaahi aadam calayhi salaam waxaa laga abuuray 7 ciid. 7 ciid ee waddan kale oo laga helo ma jirto aan ka ahayn deegaanka soomaalida ay degto. fakir maxaa waddan kasta ciid gooni ayuu ku caan yahay, laakiinse deegaanka soomaalida ay degto oo dhan oo idil waxaa laga helaa 7 ciidood ayaa laga helaa. tan kale dhulkan inuu yahay dhul barakaysan ee aada u barakaysan, bal fikiro maxay ku dhacday marka astronoodka cirbixeenada marka la diraayo meel kasta ha laga diro, waddan kasta ha laga diro, shiina ha laga diro, maraykan ha laga diro, yurub ha laga diro, meesha ay ka galaan atmosfeerka waa soomaaliya, waa berbera meel ku beegan ayay ka galaan atmosfeerka. meel kale oo ugu furan atmosfeerka ma jirto.
xabsad shuud kolka imaanaysa ka hor rumaaniyiintii iyo gariigii imaan jireen waa dhul barakaysan bay oran jireen waa nacam waa run waa dhul barakaysan oo ilaahay barakeeyey xabsad shuud markay timid haddana 1439 waxay ahayd inay tiri oo laga hayaa waa dhulkii awoowayaasheed waa ancestorskeedii halkii ay ka soo askunmeen ay ka soo faracmeen DNA-gii waxaan soo sheegnay oo hore uga soo sheekaynay lamid DNA annaga ina lamid ah dunida ma jiro cid walba Yurub joog Maraykan joog Asia joog halkaa dunta joog tijaabi DNA-gaada qaad chromosomeskaada bal eeg intee waddan laga heli karaa baro waayahay carooyinka toddobada ah waddan kale oo yaalaan ma jirto haddaba waxaan soo sheegnay marka in waddanka uu baahan yahay archaeologistayaal rag soo bartay cilmiga archaeologiga geologiga soo bartay buu u baahan yahay marka taariikh la baarayo dhowr siba waa loo baaraa luqad ahaan waa loo baaraa degaan ahaanna waa loo baaraa Soomaali oo ah deegaankii xoolaha joogay Soomaal waa xoolamaal waa biyamaal waa kalluumaysato waa soo sheegnay waxaa soo idil waan soo wada sheegnay DNA-gan koromosomayaashan maaragtay V32-ga habla group la yidhaahda ayaana lagu xisaabaa annaga buurheybe aan u laabana marka buurheybe waxaa ku hareeraysan oo agaarkeeda ku yaalla 7 buurood baa ku yaalla laakiin Soomaalidu waxay u badan tahay waxay yiraahdaan 3 buurood waa dhab 3 buurood waa jiraan oo beyski ah oo maaragtay ummadda ay ka soo askunmeen boqortooyo fara badan ayaa soo martay boqortooyada bal intaan la gaarin boqortooyooyinka aan ka sheekeynin oo kuwii ugu dambeeyey tii Ajuraan ay ahayd wuxuu dhan wada kicisay oo iyadana markeedii la kiciyey bal marka hore aan baarno halkan waxa yaala da ahaan xilligii maaragtay ay yiileen waa intee sano waa intee boqolaal sano waa intee kumanaan sano awya raadadkaasi مثلا waxaa ka soo sheekaynay saantii ama raadkii ku yiilay buurahaasi dhexdooda ku yiilay cid walba ku istaagta ee la eg tahay cid walba ku cabir ay tahay qof yar hadduu ku istaago waa la cabir way la eg tahay nin weyn ama gabar weyn haddii ku istaagto way la eg tahay ilmo yar haddii ku istaagaana way la ekaanayaan curiosity baan sameeyo waan eegay ilmo yar meesha waxa weeyaan meel maartay goob ay u tagaan dadka suufiyadana ay tagaan oo cibaadaysi meesha ku cibaadaystaan waa wili way jiraan lama burburin sida akhbaaraadka aan ku helay waa la kari waayay in la burburiyo waa calaamadda labaad ay tahay meel aad u barakaysan inay tahay waayo waxaa soo baxeen kooxo burburinayo taariikhahaas iyo astaamahaas meelaha ay dadka barakaysan ama dhulka barakaysan ah la baabi'inayo way kari waayeen saantani waa la kari waayay in la baabi'iyo waa la kari waayay in la baabi'iyo hoggaan dheer oo wixii lagu dhex rido aan dhulka gaarayn aadan maqlaynin waa la kari waayay donc maxaa kugu waajiba dhalinyarada aqoon-yahanow walaalkaygow walaashayday waxaan doonayaa inaa bal buugagtii iyo wixii waan wada akhrisanay gebigeenna
bal iminkana aan xoogga saarno archaeologigii iyo geologigii iyo nimcooyinka yaalla dhulkan aan saarno xoogga aan u soo jeesano waxyaalaha malaayacniga aan ka sii jeesano siyaasaddu waxay tahay male waa oday aan saaxiibnaha waxaan ka hayaa waa kursiga timajaraha aada fadhiisatay kursiga timajaraha marka lagu dhameeyo waa degaysaa mid kale soo fadhiisanaya asna timiyaa loo xiirayaa loo jirayaa khayr badan allah siiyo caafimaad allah siiyo waa walaalkay cabdulqaadir kamtiirey kanadaan ku ogahay hadda aad baan ugu farxaa markaan soo xusuusto waa la mid siyaasaddana waa la mid marka wax aan bedelmayn oo kursigii aan lagaa bedelayn hantidaana ka jirta nimcadaana ka jirta aan la soo baxno war waxaynu nahay annaga rayska ugu qaalisan dunida ayaynu nahay rayska sii dabar go-aya ee badbaadinta u baahan baynu nahay rays waxaynu nahay aan rays kale aan la mid ahayn rays waxaa la yidhahdaa isirka annaga soomaaliya isir lamida dunida ma jiro dhalinyaro aqoon-yahan u soo jeeso indhaha fur hamoodin waxaan kaaga sheekeynaya inay yihiin wax maaragtay malayacni ah no waa aad bay muhiim u yihiin kaliibyada soo socda insha allah dhalinyarada joogta qurbaha joogta waxaan u soo habaynayaa ee wax baratay kaliibyo afafka ingiriisiga iyo afafka faransiiska ku soconaya ayaan usoo diyaarinayaa insha allah ayaga laftigoodu ma ahan dad shisheeye maaha waa muwaadin soomaaliyeed kani halkan ayaan ku joojinaynaa sidaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu noqda kuwa dhuuxa casharkan kani waa cashar